laga yaabee inaadan ku baraarugsanayn xilligan awoodda daahsoon ee maalinba maalinta xigta soo ifbaxayso. Haddii dhegahaaga ay waayahan maqlayeen doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa ka dhacaysa waddanka, waxaa taasi welwel ay ku abuuraysay xisbiyo siyaasadda Soomaaliya sanado badan ka soo muuqday iyo siyaasiyiin waaweyn. Sababta xaaladdan welwelka ah ay u soo abuurantay ayaa ah inaysan siyaasiyiintaas iyo xisbiyadaasi haysan awoodda shacabka oo u muuqatay hal taageero oo xisbiga xilligan talada haya ah. Inta uu jiray warka ah waa dhacaysaa iyo macquul maaha doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa bannaanka waxaa u soo baxay xisbiyadii iyo hogaamiyaashii ugu mudnaa xilligan oo ay tahay inay u istaagaan badbaadinta dalka iyo qabashada xilka ugu sarreeya ee waddanka. Hadda awoodda waxa ay u socotaa dhinaca shacabka maadaama iyagu ay dooranayaan hogaamiyaha biri xukumi doono dalka. Marka laga soo tago hal ama laba xisbi siyaasadeed ee talada dalka soo qabtay, haddii aan been la abaabulayn taageerada dhinaca shacabka ugu badan iyo waddada toosan oo diinta Islaamka in lagu hagaajiyo umuuraha waddanka, waxaa iska leh laba xisbi oo aan lagu baraarugsanayn kalsoonida iyo waxqabadkooda. Kow waa xisbiga dib u heshiisiinta iyo horumarinta ee Tawfiiq iyo urur siyaasadeedka Samadoon. Labadan xisbi ayaa ah labada urur ee keliya oo ka soo baxay shacabka Soomaaliyeed. Waa dareemi kartaa kalsoonida iyo awoodda intaa la eg oo ay xisbiyadan hiigsanayaan. Taageerayaasha labadan xisbi waxa ay leeyihiin ballanteennu waxa ay ahayd doorasho hal qof iyo hal cod ah la gaaro si taladeennu ay u soo dhowaato. Labadan urur ayaa waxaa kala hogaaminaya Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah hogaamiyaha xisbiga Tawfiiq iyo Khaliif Cabdulqaadir Macalin Nuur oo ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka Samadoon. Waa laga yaabaa inaad arkaysay isku soo baxyo waaweyn oo ay fagaarayaasha siyaasadeed la yimideen labadan urur. Waxaase ku qarsoon olole siyaasadeed oo xoog leh. Sidee u aragtaa adiga?